Jacayl. Daawade adigan i daawanayo jacaylka maxaad ka aaminsan tahay? Waxaan ku hayaa 5 aragti oo ku saabsan jacaylka. Sirta cilmu nafsiga iga hoo. Muxuu dadka u galaa jacayl? Muxuu jacaylka qaar u raagaa midna dhaqso u baaba'aa? Dhaqaatiirta cilmu nafsiga iyo baarayaal ayaa soo jeediyey dhowr aragti oo kala duwan oo sharaxaya qaababka jacaylka iyo adkaysigiisa. Jacaylku waa dareen iska caadi ah, balse fahamka sida iyo sababta uu u yimaado way adag tahay in la fahmo. Sida dhabta ah muddo dheer waxaa la aaminsanaa in jacaylku uu yahay wax fudud, aas-aas ah, mucjiso ah, ayna adag tahay in si buuxda loo fahmo. 4 arrimood ee soo socda waa aragtiyada ugu waaweyn ee lagu sharxayo jacayl iyo waxyaabaha dareenka ah ee ku lamaanan ka helidda iyo sidoo kale jacaylka. Dhakhtarka ku takhasusay cilmu nafsiga ee la yiraahdo Zack Rabin waxa uu soo jeediyey in jacaylka ama waxa loo yaqaano romantiga uu ka kooban yahay 3 arrimood: 1. Isku xirnaan, daryeel, iyo isu soo dhawaansho. Rabin waxa uu aaminsan yahay in mararka qaar ay dadka dareemaan farxad iyo mahadin. Qofku wuxuu jeclaanayaa inuu waqti badan la qaato oo uusan ka fogaanin qofka uu jecel yahay, balse taasi ma noqon karto jacayl mararka qaar. Arrintaasi waxay noqon kartaa ka helid, sida uu sheegay Rabin. Jacaylku wuu ka qoto dheer yahay sida wuuna ka xamaasad badan yahay. Waxaa qayb ka ah rabitaan iyo isu soo dhawaansho jir ahaaneed iyo xiriir. Dadka iska hela waxay isla qaataan waqti, balse kuwa isjecel way isdaryeelaan waxayna isu buuxiyaan baahiyahooda. Isu xirnaanta dhanka qalbiga waa rabitaanka ah daryeel, is-ogolaansho iyo isu soo dhawaansho, waana qiimeynta aragtida iyo farxadda qofka kale iyo wadaagidda dareenka qalbiga. Jacaylka naxariis iyo xamaasadda. Sida ay sheegtay Eileen Hadley oo ah dhakhtarad cilmu nafsi, waxaa jiro 2 arrimood oo aasaas u ah jacaylka: jacaylka naxariista ah iyo jacaylka xamaasadda ah. Jacaylka naxariista ah wuxuu ku salaysan yahay isu xushmayn, isku xirnaan, kalgacayl iyo is-aaminaad. Waa jacayl dhaliya isfaham iyo in la is-xushmeeyo. Balse jacaylka xamaasadaysan waa rabitaanka galmo ama xanaaqa, walwalka iyo kalgacaylka isla socda. Marka waxyaabahaas ay meesha ka baxaan, qofka wuxuu dareemayaa farxad iyo qanaaco, balse haddii taas ay dhici weydo, qofku wuxuu noqonayaa mid jahawareersan oo niyad jabsan. Jacaylka u samaysan sida taayarka ama shaaga gaariga. Buugga la qoray sanadii 1973 oo magaciisu ahaa Midabka Jacaylka, uuna qoray John Lee oo cilmu nafsiga ku takhasusay, wuxuu ku sheegay midabka taayarka. Wuxuu jacaylka ku sheegay inuu leeyahay 3 midab oo aasaas ah, waana kuwan: Eros waa eray ka yimid luqadda Giriigga, micnihiisu waa xamaasad ama kacsanaan. Waxa uu sheegay in jacaylku uu yahay mid jir ahaaneed iyo mid dareen. Lodos waa eray kale oo Giriig ah oo micnihiisu yahay ciyaaraha geymka. Waa arrin ah xanuun iyo farxad, balse aan halis ahayn. Dadka isu qaba jacaylka nuucan ah go'aan wanaagsan ma lahan, waxayna walwal ka qabaan isu soo dhawaanshahooda. Storge mar kale waa eray Giriig ah oo micnihiisu yahay kalgacayl dabiici ah. Kani waa jacaylka dhexmara waalidiinta iyo carruurtooda iyo carruurta ay sii dhalaan. Sidoo kale waa jacaylka u dhexeeya saaxiibada. Aragtida jacaylka 3 geesoodka ah. Dhakhtarka cilmu nafsiga ku takhasusay ee la yiraahdo Rebot wuxuu sheegay in jacaylka 3 geesoodka ah uu ka kooban yahay 3 arrimood oo isku xiran: isu soo dhawaansho, xamaasad, ka go'naansho ama fulinta ballanqaadka. Isku darka 3dan arrimood waxay dhalisaa noocyo kala duwan oo jacayl ah. Tusaale ahaan, isku darka go'aanka iyo isu soo dhawaanshaha waxa ka dhasha jacaylka naxariista ah, halka isku darka xamaasadda iyo isku soo dhawaanshaha uu ka dhasho romantic love, waxa loo yaqaano luqadda qalaad.